السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنا ونكسن كنا سود هذا حق عصب وداها كقاعدة سوى حيابها كقرصون عبما عن لوجين مدحض قارة أفريقيا أي كوكعان هذا برنامج كان جار كواحد كقاعدة لجدونا وينو كجحل لدونا تمن كمدحوين الدنيا آمن سنتها يعني كتاجرين دي قبل شد الضير تاي دلل كودا ود دقالة الدلك يوقت يدي كالدونايا والدلك أسي صومر وحنا إنه كبلا بدونا مدحوينها الدلك سيمداوي مدحوينها كانت تبناد كجا جرا مدحوينياش hadaba maxaad ka taqaanaa madaxweynaha wadankani maamulada dalka Zimbabwe oo loo yaqaan Robert Mugabe waa madaxweyne daadiisu ay waqtigani tahay 29 jir waxa uu dhashay 21 February sanadu markii ay ahayd 1924 waxa uu ku dhashay magaalada loo yaqaan Borshono waxa uu ka soo jeedaa qoyska loo yaqaan Kuma madaxweynahani waxa uu waqtigii gumaysiga wax ku bar dugsiga loo yaqaan Kutama College iyo jaamacadda loo yaqaan Farihiya waxa uu xukumaa dalba xadiisa dhul ay gaarayso 99 milyan 757 kilomitir oo isku weerar bulshada dalkaasi ku noolna ay gaarayso 12 milyan 973,808 awoodda dhaqaale ee dalkaasina waxa uu ku tiirsan yahay dhanka beeraha iyo macdan tiro yar oo uu dalkaasi leeyahay caasimadda dalka waxa loo yaqaan Harare waxaana uu dalkani xorriyadiisa qaatay sanadu markii ay ahayd 18 Abriil 1980 dadka dalkan ku nool waxa ay u kala qaybsan yihiin isla markaasina ugu badan dadka Afrikaanka madmadow iyagoo tirada dalkaasi ay kaga nool yihiin ay gaarayso 99.4 halka dadka cadcad ee Afrikaanka ay ku tiran yar yihiin isla wadankaasi ayna ku fadhiyaan dhibic gaaraysa 0.2 ama ka dhigan eber dhibic 2 dad kale oo dalka ku nool isla markaasina waqtigii gumaystaha lagaga tagay ayaa ka gaaraya dalka eber dhibic 4 dhaqaale ahaan dalka Zimbabwe wadana awoodiisa dhaqaale ay aad iyo aad u hooseyso iyadoo cadaadisyo badan dalkani uu ka hayo dawladaha reer Yurub iyo shisheeyaha faragelino siyaasadeed oo fara badan iyo dano ay dhahaayeen dawladaha reer Yurub iyo Ameerika oo suurtagal laga weeday inuu fuliyo ayaa dhaliyay in madaxweynaha waqtigani uu cadaadisyo fara badan ay ka qabsadaan dawladaha uu qadiyadooda aadka ugu aagay amaba uu ka hor yimaado fikrada ay leeyihiin dalkan hogaamiye madaxweynaha 29 jirka waxa uu macaamil dhanka dhaqaale ay kala dhaxeeyaan dawladaha Chaynuhu uu kamid yahay ee dhanka ganacsiga dunida waqtigani daad madaxweynahani waxa uu ka takhalusay mucaaradad fara badan waa siyaasi rugcadaay oo dadka ku nool intiisa badan ay jecel yihiin waxa uu talada hayay tan iyo maalintii dalku xorriyadda qaatay ilaa iyo maanta iyadoo sidaasi ay tahay siyaasadda dalku madaxweynuhu waxa uu kamid yahay 10 madaxweyne ee ugu maalqabeynsan qaaradda Afrika waxaana looga shaki qabaa ana la aaminsan yahay in dhaqaalaha faraha badan ee madaxweynuhu leeyahay ay ka timid dhaqaalaha bulshada danyarta ee dalkaasi ku nool waxaana dhaqaalihiisu waqtigan iyo awoodda dhaqaale ee dalka uu hogaamiyaaba ay aad u hooseyso gaar ahaaneedna uu gaarayo lacag dhan 10 milyan oo lacagta wadankaasi Mareykanka saasna waxa uu ku noqday madaxweynaha kaalinta tobnaad kaga jira 10 madaxweyne ee la aaminsan yahay inay ugu maalqabeeysan yihiin madaxweynayaasha qaaradda Afrika